waxaynu ku jirnaa jumcadii labaad ee aynu soomanahay bisha barakaysan ilaahay uu barakeeyay ee ramadaanka saddex marka loo dhigo meel ka mid ah taqriiban way tagtay waxaa inoo haray ma gaari doonaa mase ma gaari doona ma ogin waxaa habboon shala way tagtay mana soo laabanayso maantana waa joogtaa waana nooshahay berrina ma ogid inaad gaaraysid marka shalana way ku dhaaftay berrina ma ogid maantay unbaa leedahay waxaa ku xisaabtantaa maanta inaad khayrka ka qaniimaysatid oo khayrka uusan ku dhaafin oo maantayba taladu kugu dhowdahadee furaska bishaan ilaahay dhex dhigay oo barakaysan inaad ka faa'iidaysatid isku day hadday tahay qur'aanka oo la akhrinayo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam dadka wuxuu ahaa midka khayrka ugu dadaal badan ramadaankuna ugu sii dadaal badnaa jibriil baana nebiga u imaan jiray salى اllahu calayhi wasalam qur'aankana waxa weeyaan la akrinahayey rasuulku wuxuu ahaa khayrka mid uga dadaal badan dabayl dheeraynaysa oo dhabanaysa nebi moxamed baa uga dadaal badnaa khayrka calayhi الsalaatu wasalaam asaguna waa dayashadaadi ku dadaal qur'aanka akhriskiisa inaad badisid oo sidii hore aad ka bedelnaatid waxaa ku didaashaa idcaamu الطacaam dadka quudi waxa ilaahay uu ku siiye bixi wayuطcimuuna الطacaama calىa xubbihi miskiina wayatiima waasiira way bixinayaan maalkooda ay quudinayaan ayagoo jecel oo maalkii naftooda ku bakhiilayso oo maxabbo iyo galgacayl qalbiga uu yaalla maalkii ay jecel yihiin bay masna ku dhiiranayaan inay bixiyaan waxayna siinayaan miskiin iyo yatiim agoon mid qafaalan qof dhibaataysan ay siinayaan maxay u quudinayaan inay dadka quudiyaan maxay ka dheefayaan waxay ka dheefayaan innamaa nuطcimukum liwajhi اllaah laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura in loo soo duubo loo soo sawiro ma rabo in magaciisa la sheego ma rabo in lagu ammaano wax badan buu bixiyey ma rabo wuxuu u quudinayaa oo u siinayaa oo u bixinahayaa liwajhi اllaah ilaahay daraaddiis mana idinka doonayna abaalmarin ina amaal noogu gashaan iyo berri aad oga baxsatay asaguna inuu ku saacido ma aha dadka wax bixiya oo wax saxa ilaahay u aqbalay waa dadka noocaas waa kuwa ilaahay uu qur'aanka ku yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum biاllayli waاnnahaari siran wacalaaniya kuwa hantidooda bixinaya habeen iyo maalin si qarsoodi ah iyo si aan qarsoodi ahayn ilaahay dartiis bayna u bixinayaan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ajarkooda wuxuu yaallaa ilaahay agtiisa mar haddii la yidhi ilaahay agtiisuu yaallaana ilaahay waa akramu اlakramiin wa ajwadu اlajwadiin inta deeqsinimo sheegata kan ugu deeqsisan wey ilahay baa ka deeqsisan haninimona ilaahay agtiisay taallaa haddii ilaahay uu ballan qaaday inay ajarkoodu ilaahay agtiisa u yaallo wax dambe u dhiman oo waxa weeyaan fadli ah ma jiro nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam dhaqankiisu sidaasuu ahaa ibnu اlqayim wuxuu leeyahay wakaana alcaطaa'u waالsadaqa axabba shayin ilayh inuu wax bixiyo oo wax sadaqaysto waxa uu jecel yahay ku ugu jeclaa buu ahaa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه siduu ugu farxahay inuu wax bixiyo waxay ka weynin badan tahay kan la siiyay farxa oo farxahayo waxa ka weyn nabi muhammad alayhi salatu wassalaam bixinta uu bixiyo siduu ugu farxahay
إلا وحين نقانا معروف قفك وحلصيات بو فرحة نبي محمد باكا فرح بدنا إنه واحد بحيي مركا وحال الرباضو بحسي إنها كفر أحسن تاي مثلا واحد بحسي حليا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وكان أجود الناس ضدك وأوجد قسنا يمينه كالريح المرسلة مدكتيس النبي محمد عليه الصلاة والسلام ضبيل أردي سؤال كلا أي أحد سيوح بحنيسه كان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه هدو كهري ماذا مدباهن أوضني أي هيصه نفتي سوء قدوره تارة بطعامي وتارة باللباس مروح قدوره يباهي هدي تاي وحا هيا عندي النبي أسقو عني لهابو تو اسكد يا أسقو السينا هدي تاي در الآن وحا هيسنا مرادي أوحران لهابو تو نفتي سكد يا أسقو السينا وكان يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم وهو أمري النبي محمد ذاتك الصدقة أي أمري ولو أمري ولو علينا يا مر والبعض ولمصلحتك أنت مصلحة هذا وي مالك آلية هاي أو صدقة كب حسي ومتك آلية هاي أو ربط أوي وإناد أغاتا مر والبهدي لو عليه ومصلحة هذا يضنت هذا وي واحد عنده محايا الشلين كآد بحسد وامدك دحالك الرسمي دحلس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالين تاسا هوس كذا هرسنا يسا مالين تاسا إلهي كوكو دوريا الدنيا دان إلهي وكوكو بدبادنيا ولذلك مر والبا وإنات أغاتا إنه مهم تحي إن صدق ذا الوقوع عليه نبي قوى أمري ضدكنا وكبورين هيي فعل أهان وأسمينه هي قول أهان بالنبي عليه الصلاة والسلام مركز وحي الإمام ابن القيم وحي ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا سيدا درت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو أهابو يري قلبي أهان ضدك متك أقول طيب سن أيها نف أهان أو واسع صن صدري سن أو واسع نما بدن يهي حسلوني هداي تهينا قلبي سيدكت ضدك متك أو قلبي قبو أو قلبي فرن أو قلبي النحريس بدن أيها فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر محايا لي صدقة إيه معروف كأضدك وناق الله سمعيه سامي وين وحي كل هذا هاي قلبي قال إنه دقه أو حصله أو واسعه نقضه أي سامي وين كل هذا مرة بتاع قلبي قال إنه نقض قلبي دقن مركت يهمك إلهي كقاضه فرحسن عريرك إلهي كساره كو عريرك يمركت أي هيست لك يبصو أو حسي أو بحي بشان وحال لوغا فائدة استا إفطار الصائم قفك الصومن الله أفريه وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا قفك أفريه قف صومن أجر كيسو أو كلا أيو ليهي كي صومنا أو أفريينا أجر كيسي وحون لغا نقصامين ماي وح لغا نقصامين مجرد أديك مركا هدي قفكو أفريو إيا هدا أدوكو عنada intaa samaysatay cunadaada gacantaada ku samaysata ku afurtid ajarkaaga nuqsaamaya qofka ku afuriyo ma jiro ajarkaaga waa buuxa laakiin qofkan ku afuriyay wuxuu helayaa ajarka aad heshay oo kale helaya waliba qofkaas aad afurisay haduu yahay qof ahlu khayr oo taqwa badan oo khayr badan oo soonkiisa ikhlaaskiisu ziyaado yahay ajarkiisa oo kale lagu qoray ajarka asagu uu helay oo kale ayaa lagu siinay waxa uu maleynaysa qofkii afuriyay 2 iyo 5 iyo 6 iyo 100 qofka afuriyay ka war bishaan oo kale
qofka ilaahay uu waxsiiyey hadduu horay bakhiil u ahaa bakhiil ma noqdo hadday wax u dhaqan yihiin wax un hadday u dhaqan yihiin bakhiil ma noqdo deriskaaga ma waraysatay yaa xala saxuurtay yaa shala afurin gurigaaga hoos ka xirataa nuucii arabtid baa lagu sameeyey wixii ka soo harana bari subax baa ariga banaanka iyo looda loo tuurahayaa qoyskaa kugu dhagan waxaa laga yaabaa biyo inay ku afureen iyo timir hadday u badato xalayna waxay ku saxuurteen waayeen aadan maalinna aadan weydiinin deriska warayso qaraabadii la xiriir kuwa jooga halkaan kuwa jooga tuulooyinka kuwa miyiga jira la xiriir in badan baa waxay leeyihiin telefoonkayga hadhow tabaranayaan oo iga hari mahayaan waa bakhiilnimo meesha ugu dambaysa wey hadday telefoonkaaga bartaan oo ku soo wacaan haddaadan waxba u heli karin alkalimatu ayiba sadaqa kelimadda wanaagsan oo aad tiraa wal alkhayr allah ku siiyo waxba kuuma heli karo soo ayada laftigeedu sadaqa kuuma aha haddayse ku soo wacaan oo ay wax ku bidahayaan oo ilaahay kaa dhigay qof wax la bidahayo ma ilaahay ku shukrisid oo aad siisid xoogaa timira oo carabi ay keentay ama waxa weeyaan hal nin oo ganacsada ah 10 masaajid 20 masaajid kartoomo uu geeyey adigii qaniga ahaa gacanta ha u dhigan adigu ma geys hadduu asagu qaarada ka soo safriyay sadaqadiisii kuwa ku hoos jooga adigu ma siisid maxaa iimaanka ka qaad maxaa ku gaarsiiyay heerkaas oo qofka wax haysto ilaahay ka baq xilligan xaalad adag baa lagu jiraa dadka u naxariista arinta kale oo muhiimka ah waxa weeye salaada taraawiixda iyo qiyaamul leylka ama tahajjud ku magacaw ama qiyaamul leyl ku magacaw ama taraawiix ahaato kulli waa isku mid alaykum biqiyaamil leyl xadiidka nabiga ah qiyaamka habeenkii allaazima waa nagu booriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa innahu da'abu saalihiina qablakum dadkii saalihiinta oo idinka horeeyay dhaqankoodii weey wa qurba wa huwa qurbatun ila rabbikum ilaahay dhawaansho loogu dhawaanayo weey wa makfaratun lisayi'at dambiyada lagu dhaafaa wa manhaatun lilithm dambiga ayuu qofku ka reebaa salaatul leylka qof xala salaatul leyl tukaday subaxdii markay tahay tuugo iyo been iyo biliqo iyo laaluush ku dhiiran maayo wax alla waxa baqti cunayaalka ah oo xaaraanta cuna oo fisqiga xumaanta u yaacaya habeenkii oo dhan bay khoorinayaan ma soo kacaan dadka soo kaca waa dadka salaatul leylku ay ka reebtay xumaanta iyo dambiga ay ka reebtay dadka aan ku dhacahayn oo u soo kaca waa dadka maalinkii markay tahay nuurka wajigooda saaran laga dareemayo xalay inay ahaayeen aanaa leylka kuwa ilaahay bariya subxaanahu wa tacaala xilliga ducada la aqbalo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambi qofkii ramadaan istaaga oo qiyaamkiisa la yimaada isagoo ilaahay rumaysan ilaahayna kaga ajar xisaabsanaya dambigiisii waa la dhaafaa hore waa loo dhaafaa ilaahay haynoo aqbalo sunnaduna waxay tahay qofku imaamka inuu la bilaabo lana dhammaysto waa ka nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii imaamka la bilaaba lana dhammaysta kutiba lahu qiyaamu leyla habeenkii oo dhan inuu taagnaa baa loo qorayaa oo loo diiwaan gelinaya waa fadli weyn marka dad baa imaamka markuu witrigu haro oranaya witriga gurigaan la aadaya maya fadiiladu waxay ku jirtaa asaga la bilow lana dhammayso